maalin kasta waxaan maqalnaa nin $5 u bedelay $1,000 ama nin markaa $1,000 u bedelay $1,000,000 ayagoo isticmaalaya marka wax la yiraahdo meme coin. Haddaba muuqaalkan waxaan doonayaa inaan idin la wadaago waxa meme coin uu yahay iyo sidoo kale waxaan doonayaa inaan idin la wadaago halisaha uu leeyahay meme coin-ka iyo tan ugu dambeysay ugu muhiimsan oo ah sidee meme coin u iibsan kartaa adigoo markaa isticmaalaya telefoonkaaga. Soo dhawaada muuqaalka waxaan idin codsanaa inaad noo sii share gareysaan sidoo kale haddii aad ka hesho muuqaalkan like noo saar haddii aad nagu cusubtaan kusoo bir platformskeen waxyaabo badan baa ka faa'iideysan doontaa. Soo dhawaada markaan isla eegno. Marka hore meme coinsku waa nooc ka mid ah cryptocurrency-ga kuwaas oo marka loo sameeyo ama loo abuuro qaab iska kaftana. Meme coinsku la mid ma aha cryptocurrency-yada waaweyn sida Bitcoin-ka oo kale ama Ethereum-ka oo kale laakiin waa coins marka loo sameeyay in ku dhufo ka dhaqaaq looga faa'iido oo marka lacag laga sameeyo. Dhibaatooyinka ay meme coins waxaa ka mid ah laakiin halistooda aad bay u badan tahay sababtoo ah 99% meme coins-ka la sameeyo badankood way fashilmaan ama dad baa marka waxay u sameeyaan in dadka kale ku qiyaamayaan. marka dhowr qof baa ama team baa abuuray meme coin kadib lacag bay ku shubayaan kabacdi marka dad badan ay ku soo biiraan xalaga marka inay dhulka la jiraan oo rag bul wax loo sameeyaan kadib marka lacagtii ay kala baxaan dad badan marka ay ku qasaaraan marka 99% meme coins-ka la sameeyo inta badan waa meme coins scam oo lagu qasaaro marka taasna waxay ka dhigaysaa riskiga meme coin-ka mid aad iyo aad u sareeyo waxa laga yaabaa markay 100 qof meme coin lacag gashato in 100ka qof 99 qof oo ka mid ah lacagtooda ay ku qasaaraan oo hal qof uu ka faa'iido marmarka qaar waxa dhici karta meme coins marka nasiib ku soo baxsada kii maalinta dheer soo baxay Trump coin la dhigi jiro kale oo marka lacag badan laga faa'iido laakiin marka hore muuqaalkan inta aan guda galin waxaan doonayaa inaan idin sheego meme coinsku riskigooda aad buu u badan yahay waxayna u badan tahay marka inaad ku khasaari doontid marka si taxadar leh u isticmaal sidoo kale ha iska gelin lacag badan oo marka u baahan tahay si aad marka lacag badan uga hesho isku day marka meme coinska inaad wax yar oo aadan u baahnayn aad ku tijaabiso laakiin dad lacag safe ni habaan gelinaa si aan ugu taajiro waxay u baahan tahay marka in lacagta dhow ka lumi doonto marka meme coinsku waa sida riskigooda uu badan yahay hadda waxaan doonayaa muuqaalkan inaan idin la wadaago sidee baad meme coin u iibsan kartaa adigoo mobilkaaga isticmaalaya computer ma isticmaalaya iminka waxaan doonayaa dadka dhan inay la fahmaan meme coinska isticmaalkiisa marka dadka intooda badan mobile bay haystaan computerka inta isto yarta marka waxaan doonayaa inaan from A to Z idin tuso ee qaabka aad u iibsan kartid meme coin adoo telefoonkaaga isticmaalaya sidoo kale waxaan tusin doonaa applicationada marka u baahan tahay si aad u isticmaasho meme coinska soo dhawaada marka waxaan rajeynayaa wax badan ka faa'iideysan doontaa muuqaalka marka ugu horeysa si aad u iibsato meme coin waxa u baahan tahay inaad isticmaasho wax la yiraahdo Solana Solana mid ka mid ah lacagaha la isticmaalo cryptocurrency-ga waxayna ku jirtaa kuwa ugu waaweyn marka ay aadka loo isticmaalo marka si aad u iibsato meme coin waxa u baahan tahay marka koowaad lacagtaada inaad ka dhigto Solana inta aad doonaysid inaad u isticmaasho taas waa qodobka labaad waxa u baahan tahay wallet-kan la yiraahdo Phantom Phantom waa wallet decentralized ah isaga wuxuu kaga duwan yahay Binance-ka ee lacagtaada custodial waxa la jiro in lacagtaadu ay Binance gacanta kugu hayso oo marka u baahatay ay ku soo diri karto haddii maanta Binance wax ku dhaco lacagtaadii Binance bay raacaysaa haddii Binance scam noqotay dhahdo lacagii aan hayo dhan waa la baxsaday lacagtaas bay kugu deynaysaa laakiin wallet-yada noocan oo kale waa non custodial lacagtaada adiga iska leh laakiin wuxuu ku xun yahay adiga waxa weey in lacagtaada adigu waa ilaashato haddii mobilka laga xado kale ama haddii wax kugu dhacaan oo kale lacagtaada sidii way ku lumaysaa marka inta badan code bay dadka siiyaan oo la seed phrase code-kaas bala doonaa meel inaad dhigato inta hadda waan arki doonaa idin sheegayo appkan ku shubo kadib markaa furto xaga markaa timaadid ay agree dooro kadibna waxaad tiraahdaa create new wallet marka hadda wallet cusub baa lagu sameeyaa halka markaa joogtid waxa isticmaashaa meesha ku qoranta seed phrase seed phrase markaa isticmaashid wuxuu ku siin doonaa in adigu aad phraseska haddii mobilka laga xado kala xitaa kelmadaha meel kugu qoran dib u soo ceshan kartaa wallet-kaaga halka anigu ma furayo adigu furo device authentication sababta muuqaalkan duubay uga qasaya marka next time iska dhahaya kadib wada seed phrase-kay waa kana just ana dhow iska tirtiri doonaa kan idinku baad ku tusinaya seed phrase-kan wuxuu ka kooban yahay 12 kelmad 12 kelmad waxa laga doonayaa inaad meel ku qorato marka copy taabo kadibna meel ku soo save garayso waxa ka dambeeya get started badi doontaa kabacdi marka application-kaaga halkan buu ku keenayaa halkani waa wallet-kaaga wallet-kan waxa la yiraahdaa wallet decentralized way adiga iska leh waxaana loo baahan yahay marka inaad ilaashato kan enable iska dhada doonta updateska notification buu ku soo diraya halka marka timaad wallet-kayga hadan wax lacag kuma jira waa 00 hada office Solana Ethereum wax lacag oo igu jira malaha marka si aad u iibsato meme coin marka waxaad u baahan tahay in aad halkan keento lacagtaada halkan waxa ku keeni doontaa marka Solana qaab ah for example waxa isticmaalaysaa Binance oo kale waxa la doonayaa marka inaad ka soo qaado receive taabo
kadibna waxaa koobiyeysataa halka koobiga taabo uu ku koobiyeenaya Solana ID-gaaga kadibna markaa waxaad tegi doontaa lacagtaada halkay ku taalo ama waxay noqon kartaa Binance ama Coinbase ama any other exchange kala isticmaalaysid. Markaad arkaysaa aniga halkan bay igu jirtaa Binance-kan waxaan doonayaa $30 marka inaan ku shubto wallet-ka kale so waxaan taaban doonaa markaa withdraw kadibna waxaan dooranayaa Solana kabacdina waxaan dhahayaa send via crypto network kadib halkan waxaan gelin doonaa markaa address-kii haddaan soo koobiyeystay isaga marka si automatic network igu doorayo halkan marka minimum order kala sameyn karayo Binance xilliga hadda la joogo waa 0.1 marmar bay badiyaan 0.5 ka dhigaan marmar way ka yareeyaan so 0.1 waa ilaa $25 marka anigu way igu jirtaa hadda 0.12 baa igu jira oo igu ogolaanaya marka hadda so inta marka geliso kadib waxaad taaban doontaa withdraw kabacdina wuxuu ku dhahay ma hubtaa confirm dheh inta ka dambe wuxuu kuu soo diri doonaa code si uu u verify gareeyo in adiga tahay akoonkan just Binance qaabka wax loogala baxo waa taqaaniin intiina badan ama muuqaal kale kasoo sameyn doonaa so code-ka markaa ka geliso kadib wuxuu kuu sheegi doonaa in aad ku guuleysatay processing ay ku jirto lacagtii Solanada so hadda 0.1 Solana markaa la baxaya waxayna qaadanaysaa waqti intaa la eg ilaa adiga dhowr daqiiqo inay qaadataa laga yaabaa ma garanayo marka waxaan ka eegi doonaa markaa wallet-keeni kale in lacagta noogu soo dhacday si aad arkaysaan lacagteen waxay noogu soo dhacday wallet-keeni local-ka ah ee Phantom app markaad dirtaan waxaan u baahanahay Phantom app-keenan inaan ku xidhno platform kale oo markaa lagu iibiyo meme coins-ka so meme coins-ka ayaga ma ka helaysid Binance meelaha waa in markaa suuqyada kale u doonataa hadhow marka ay soo graduate gareeyaan ay soo weynaadaan kadib bay tagaan halkan kale marka inta badan coins-ka markaa Binance tagan wuxuu u badan yahay coins lacag fiican laga heli karo waa haddii aad la soo bilowday berigii hore intay meme coin-ka ahayn markaad dirtaan waxaan doonaynaa meme lacagteenan in aan ku iibsano muxuu ahaa meme coin inagoo isticmaalayna barnaamij kale oo isla mobilka dhexdiisa ka galayna barnaamijka inaga aan doonayno inaan ku iibsano meme coin-ka waxaa la yidhahdaa Photon so Google-ka tag waxaa ku qortaa Photon space SOL kadib kan baa kuu soo baxaya marka kaa u horeeya fur calaamadaa leh so halka markaa timaadid wuxuu ku dhihi doonaa ku xiro wallet-kaaga so waxaa u baahan tahay inaad ku xirtid wallet-kii haddeertaan aan soo setup garaysana ee lacagta noogu jirtay so marka saa ugu xidho waxaad taabanaysaa meesha ku qoranta connect wallet kadibna wuxuu imaan doonaa halkan markaa wuxuu ku weydiin doonaa ma hubtaa inaad ku xirtid wallet-kaagan iyo Photon inaad isku xirtid so connect waa dhihi doontaa markaad joogtid wuxuu kuu sameyn doonaa waxa la dhaho private key so keyganna muhiim weeye in aad generate garaysato oo aad meel ku qarsato just like keykan ka hore aan soo arkaynay seed phrase oo kale isagana waxaa u baahan tahay markaa inaad generate garaysato kadibna markaa aad qarsato marka generate baan dhahaynaa hadda markaad jirtaa markaa labadaada key aa meel ku koobiyeysato ana hadhow waan iska tirtiri doonaa waxaan dhan just idinkum baan ku tusinaya continue waa dhihi doontaa wuxuu ku dhahay ma hubtaa inaad save garaysatay keyskaaga yes deh I have saved inta waxa ka dambeeya waxa u baahan tahay in aad Photon trading wallet-kiisa aad ku soo shubato Solanadaada so waxaad samayn doontaa halkan baa taabanaysaa koobiga kadibna waxaan tegi doonaa application-ka kale ee Phantom si aan ugu soo shubno markaa Solanada xagga ku jirto oo xaggana u keenno markaad timaadid waxaad dhihi doontaa send dheh kadib Solana dooro halkan markaad timaadid waxaad gelin doontaa wallet-kaagii aad kasoo koobiyeysatay trading-ka Photon kadibna wuxuu ku dhihi doonaa wuu kuu digay wuxuu ku leeyahay wallet-kan wallet cusub way lacagaas ka dirin just waa ognahay inuu keen yahay next waan dhahaynaa kabacdina wuxuu ku weydiin doonaa markaa lacagta ku shubeyso inaga max baan dooranaynaa kadibna next waan dhahaynaa so intaa wuxuu kaa diidayaa in loo baahan yahay network fee so network fee si aad ugu banayso waxaad samayn doontaa 0.08 iska dhigan si markaa dhow lacag yar uga soo harta kadib beegana network fee uga dhigtaan marka hadda network fee-gan wuu kuusii sheegaya sendi baan dhihi doonaa kabacdina wuxuu ku dhahayaa sending marka in yar bay qaadan doontaa lacagta in lagu diray halkan kala timaado marka hadda wuxuu ku leeyahay lagu guuleystay in loo diro lacagta close iska dheh hadda marka wallet-keeni from Binance baan kasoo qaadnay waxaan keenay Phantom so Phantom baa kasii dirnaad waxaan u dirnay Photon so Photon waxaa weye barnaamijka aan u isticmaalayna inaan meme coins ku iibsano oo trading-ka ku sameyno marka haddii iminka aan dib ugu noqon Photon-keeni check balance baan dhihi doonaa so sad arkaysaan lacagtii way kusoo dhacday 0.08 baa kusoo dhacday marka iminka wixii ka dambeeya haddeertan last stage waan joognaa waxaan awood u leenahay marka in aan sameyno trading oo aan iibsano meme coins-ka so start trading baan dhihi doonaa kabacdina halkan baan imaanaynaa so Photon-ka laftirkiisa wuxuu u baahan yahay meelo badan wax laga badbedelo setting-kiisa
marka muuqaalkan aad buu noogu dheeraanayaa marka hadda doonaysa tradingka inaad wax badan ka barato waxaa u baahan tahay in aad soo daraasayso qaabka photon marka wax iibsanaysid la isaga jeeg gareeyo so mar walbana waxaa muhiim ah mar kasto meme coinka iibsanaysid in aad si fiican isaga soo research gareyso waxyaabo badan oo muhiim ee taxaba jira la doonayo qofkii inuu iska eego waxyaabahaas oo dhan soo hubisa baa laga doonayaa si aad isaga ilaaliso waxyaabaha riskiga kugu iman karaya sidaan hore usoo sheegnay meme coinska intooda badan way halis badan yihiin oo waxay sababaan lacag badan inay kaga khasaarto marka hadda tan si inaga aan u tijaabino marka hore waxyaabaha la doonayo ugu muhiimsan qofkii inuu iska eego waxaa ka mid ah like market cap oo kale MKT capkaas muhiim wey inuu qofka eego waxaa kaloo muhiim ah inaad iska eegtid auditingkan soo halkan hadda u fiirsid tigtan 4 tig ee saaran tahay qaar baa 5 tig saaran yihiin soo hadda mobilkeena wuxuu qarinayaa waxyaabaha qaar dhinaca u jiidi kartaa inaga si muuqaalku noogu dheeraanin hal xabo ma iska dooranaya muhiimadda muuqaalka waxaa weeye sidaan usoo sheegnay inaan wax tijaabin soo hadda kan oo kale 131 kun ay ku jirtaan iyagina very fast aad buu carcaraya marka mid kale aan ku dhuftaa dirtaan dib aan ugu soo noqonaya marka laga yaabaa iminka meme coin hadda aan video ku tijaabinayo inuu ii kala kaco maybe marka just midkaas oo kale fur soo hadda visitkan hadda wax casaan ma ku jiro inkastoo bilow uu yahay wax yar ka hor la sameeyey marka sidee baa u iibsan kartaa iminka meme coinkan waxaa la dhahaa KitQuant si aan u iibsano marka hadda just example kan baa iska iibsanayna marka xaggaan baa waxaad gelin doontaa solaanada aad doonaysid inaad ku iibsato meme coinkan waxaa tira 0.05 oo kala dhigana hadda buy baan dhihi doonaa kadib marka waxaad u fiirsatay successfully bought 0.05 of KitQuant marka hadda already waan iibsanay waxaan ku guuleysanay meme coinka inaan iibsano oo wuxuu ku dhex jiraa marka walletkeena marka si aad u hubiso meme coinkaagan inaad iibsatiin kala waxaad samayn kartaa halkaas aad taabatid kadib waxaad dooran doontaa holdingska waxaa ku arki doontaa waxyaabaha adiga aad iibsatay markaa kugu jira jeebkaaga marka habadan baa imika noo iibsan aniga example way hadhow adiga kugu xiran tahay inaad research badan ku samaysid ama haddii aad heshid meme coin meelaha la sheegaya daa maqashid inaad imaado halkan kadibna saa ku iibsato muuqaalkeena kaga hadlayna meme coinska halkaas buu ku egyahay waxaan rajeynaa wax badan ka faa'iidaysatay muuqaalka noo sii share gareey sidoo kale hadaan cusubtaan ugu soo bir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh